صاحب يا السود وهذا وحن كسوقنا هاي هردا عان كه فيكتوريا هردا فيكتوريا تاريخ ذو حي كسب بلعبنا ساعتين قرما ذو الرئيسي وحنا الله شجع عدي وجوه الرئيسي وركسو تبيسام وحكا قرط هردنا هنا هيد بدنا حيدي المسلمين تعايا هركوا سيوي متري منطقة الجيس كأفريقيا هم الله حريرة جناح سجاه يو في دين الإسلام waxaan maanta joognaa mid ka mid ah meelaha ugu quruxda iyo qaayaha badan qaaradda Afrika dhaqaale ahaan taariikh ahaan iyo sooyaal ahaan ugu magaca iyo miisaanka weyn dunida biyaha macaan arooyinka kala duwan qaar biyaha waxa jira biyo dhanaan laakiin harada labaad biyaha macaan adduunka ugu weyn ay kaliya ka dambaysa Lake Superior oo ku taala Mareykanka ama America meeshaan maanta joognaa وماشى وقبل عمه وبيجي النيل نهر النيل الأعظم ماشى وقبل عمه وكسفر عمه قيبتي النيل الأبيض كله يقال عمه وايت النيل هربت فيكتوريا مقابلين تانو حال السيء كل إسداد بقولي كل إسداد بقولي كنت الإسداد دي وحاول مقابلين بالمرين إنجليز أهل إرادة جون سبيك مقاعية محلي اللي لوكال ودك ديانك دقنا هو يقانين حضرنا هو يقانان وحوا عن سمك عاس نالو بالي ولو يقانو بغرطويدا بغاندا هو يقانان مقاعس فيكتوريا ومقاع دريني كاس بالمرين كاهي وغردي حلوة كتير نسي بغرطويدا بريتن فيكتوريا كون فيكتوريا هردني وحايد على صدح ودن oo ka tirsan wadamada geeska Afrika ama bariga Afrika sida dalka Uganda, dalka Kenya iyo waliba dalka Tanzania. Hada Victoria saddex wadan bay ku taabsan tahay ama uu gaara balaceedu wadanka Tanzania oo qaybta ugu badan ay ku taalo 50%, Uganda oo 46%, 44% ay ku taalo iyo wadanka Kenya oo 6% saami uga hela. wariyo badan baa biyo ku dara haradan oo contributors ah waxa ugu weyn wabiga la yiraahdo Kagera oo ka yimaada wadanka Burundi waxyaalaha muhiimka ka dhigay haradan waxa kamid ah inuu ka bilowdo wabiga caanka ah Nile oo noqonayo wabiga ugu dheer ama ugu masaafada dheer caalamka wabiga Nile-ku qaybta waxa uu kala baxaa laba qaybood qaybta buluuga ah ama Nile-ka buluuga ah iyo Nile-ka cad Nile-ka cad ayaa ka bilowda harada Victoria ama magaalada Jinja ee harada Victoria isagoo sii mara 7 dal in ka badan oo ku yaala bariga iyo bartamaha qaaradda Afrika dalalka Suudaan iyo Masar ayaa noqonaya labada dal ee ugu badan ee isticmaalay wabiga Nile-ka iyadoo dawladda Masar ay tahay dawladda ugu badan ee ku tiirsan biyaha Nile-ka oo la tilmaamay ka badan boqolkiiba 97 inay dawladda Masar ka hesho wabiga Nile-ka biyaha isagoo ugu dambeynna wabiga Nile-ku u kala baxaa laba farac isla markaasina badda Mediterranean ama badda cad kaga darsama dalka Masar gaar ahaan magaalooyinka Rashidiya iyo magaalada Dumyad ilaahay mucjisooyinka ilaahiga ah ee haradan ay leedahay waxa kamid ah in biyaha kaliya ee ka baxa uu yahay ama ay yihiin biyaha ay ku darto ama ay ku bilowdo wabiga Nile-ka oo Nile-ka loo yaqaano waxa kale oo biyada kale inay ku soo daraan iyada kaliya waxa ka baxa Nile-ka oo kaga dara magaalada Khartoum ee caasimadda Suudaan Nile-ka labaad oo Nile-ka buluuga loo yaqaano dabeedna halkaas ay ka sii aadaan wadanka Masar oo ah meesha ugu caansan ee adduunku ama taariikhda ugu goosan uu ku leeyahay wabiga Nile-ka ahna xaqiiqatan asalkii iyo asaaskii xadaaradaha insaanka ugu qadiimsan waa xadaaradda Masar halkan waxa ka bilowda wabiga Nile-ka isla markaana waxa marta harada Victoria magaaladan waa magaalo dalxiiseedka wadanka Uganda oo Jinja loo yaqaan waxayna ka mid tahay magaalooyinka ugu quruxda badan ugu istiraatiijisan wadanka Uganda isla markaana waxay ka mid tahay magaalooyinka u leh hay'ad marka la yimaado qofka imaanaya wadanka Uganda oo kale yani waa magaalooyinka targetka u ah waxa loo yaqaano dalxiiska marka laga yimaado in wabiga Nile-ku uu ka bilowdo halkan isla markaasina uu gaaro dalal badan oo ka tirsan qaaradda Afrika ama bariga iyo bartamaha qaaradda Afrika waxa kale oo jirta in haradana ay muhiimad weyn oo dhanka dhaqaalaha ah ugu fadhido saddexda dal ay dhacdo Uganda, Kenya iyo dalka Tanzania haradan wadamada ay dhacdo u badan wadamada la isku yeero East African Community-ga waxay ku qabaan faa'iidooyin dhaqaale oo fara badan tusaale ahaan dhinaca dalxiiska
dhinaca kalluumaysiga, dhinaca transportationka iyo maaragtay gaadiidka badda inuu isaga gudbo, gaar ahaan wadamada maaragtay aan badaha lahayn sida Burundi, Uganda oo kale. waxay kaloo lafdhabar u ahayd waayadii hore haradanu isu socodka wadamada Tanzania, Kenya. waxaa ka faa'iidaystay dad aad u fara badan oo lagu qiyaaso 4 milyan oo qof bay nolosheeda ka fargaraysaa haradanu. waxaa lagu qiyaasaa wax soo saarkeeda kalluunka sanadkii inay soo saarto 1 milyan oo tan oo lacagta ka soo xaroota lagu qiyaaso 800 milyan ilaa 600 milyan. sidoo kale haradan waxaa looga faa'iidaystaa xagga dhanka maaragtay electricity-ga oo wadankan Uganda aynu joogno, wadankan Burundi la jaarka iyo wadamo kaleba 90% korontada ay isticmaalaan waxa laga dhaliyaa haradan baa laga dhaliyaa. Victoria waxyaabaha kale ay ku darsato contributions ka ku darsato waxa kamid ah meesha ajaa'ibka ah ee la yiraahdo Serengeti National Park oo Kenya ku yaala. waxa kale oo ay biyaheeda gaarsiisaa Masai Mara oo labaduba ah mucjisooyin ilaahi ah oo koonkan qurux iyo ashqaraar ku soo siyaadiyay. tusaale ahaan waxaa jira mashruuc weyn oo fadhigiisu yahay magaalada Jinja oo Naluba la yiraahdo oo soo bilaabmay 1992 la dhameeyay 2003. waxaa lagu tiriyay inuu yahay mashruuca ugu weyn xukuumaddan hadda waddanka haysa ay fulisay oo hirgalay oo maaragtay nolosha waddankan iyo wadamada la jaarkaaba door weyn ka qaata. sidoo kale haradan waxaa looga faa'iidaystaa dhanka biyogelinta oo tusaale ahaan magaaladan aynu joogno Kampala iyo deegaanada ku xeeran ay xukunto oo dhan waa meesha biyaha laga siiyo. waxyaabaha cajiibka ah waxa weeye webigan ama webiga Niilka ama haradan eeba uu ku manaysto waxa kamid ah inay jirto axaadiis diini ah ama jaanib diini ah oo biblical ah oo ka sheekeynaya ama ka hadlaya asalka webiga Niilka. tusaale waxa kamid ah axaadiis ku qoran saxiixaynka iyo kutubta masaaniidda ah qaar kamid ah. waxa ugu caansan xadiiska uu warinayo Sahih Bukhari ku qoran ee rasuulka laga warinayo uu rasuulku calayhi salaatu wasalaam ku sheegayo inuu ku soo arkay Sidratul Muntaha markuu tagay la dheelmiyay Laylatul Isra wal Mi'raj, inuu ku soo arkay 4 wabi oo jannada ku yaala. 4 wabi laba kamid ah markuu 4 wabi uu arkay waxa uu waraysaday Jibriil calayhi salaam inuu uga warramo waxay wabiyadan yihiin. sida xadiiska warinayo Jibriil calayhi salaam wuxuu sheegayaa in labadan wabi 4 wabi laba kamid ah yihiin Furaat, wabiga Furaat oo ku yaala dhulka Ciraaq, iyo webiga Niil oo ah webigan hadda aynu joogno maanta deegaankiisa iyo dhulka uu ka soo askumo. xadiiska la tirto oo matniga iyo qaabka loo warinayo iyo siiqada kala duwan tahay, laakiin macnayaal sida ku dhow sheegaya oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam laga wariyay. waxaan maanta joognaa mid kamid ah meelaha ugu quruxda iyo qaayaha badan qaaraddan Afrika, dhaqaale ahaan, taariikh ahaan iyo sooyaal ahaan ugu magaca iyo miisaanka weyn.